هو كلنتي وأنا ونكسن وحقرب فديا دكتور أحمد علي ومانتا وربحنا لكن نقصين دونا ديرتا دلكينا كبحدا دكتور أحمد علي كسودو MM TV بشر حد الرجود نقصي واحد مانتا لكم صبر دقيسيد. Thank you so much, Manduye. Mashallah, I've been invited today for part of London Somali Week in Cardiff. Lori Lubaan Malmal Somali Luban research at Cardiff University, UK. وحن كشغيني دولة كيمسترية يو سيد الدول اللي قدي كرو علان تودن كنا مركا علان عن كشغيني أنت أساسا لولز دور عذر فان كشغيني هنقضو arthritis cancer نبركة حمض علوشة multiple sclerosis دور diseases فان كشغيني مركا laboratory بانكولي هي Cardiff University School of Biosciences. Marka waxaan soo saaray wax la yiraahdo in patents. 5 patents oo international baan soo saaray xagga dawada. Marka maanta waxaan ka hadlayaa Luban frankincense. Dunida oo dhan baa garanaya Lubanka. Laakiin Lubanka India iyo ka Arabta umbi dadka ka hadlaan xagga media iyo America and the West. Laakiin dunida waxaan bariya maanta Lubanka Somalida Somalia kabaha Puntland iyo Somaliland waa Lubanka la yiraahdo Meidi oo ka hantida laga sameeyo ee Carabtu ibsadaan dunida oo dhan laboratory-gayga baa gartay inuu dawo yahay wadanayaasha kale waxay ka shaqeeyaan ka Oman iyo ka India iyo ka kuwa isku wada dhow laakiin dunida oo dhan xagga research-ka waxaan sameynaa wax la yiraahdo original research ma heli kartid laboratory kale oo waxaanoo kale qabtay ma helisid boswellia farina markaad gelisid Google search shaqada jaamacadeeda baad arkaysaa marka dunida waxaan tusanaa Soomaalidu inaan anuku aan wax qaban karno maanta sidaasaan doonay inaan la qayb qaato programkan oo dadkeena aan ka farxiyo aan u sheego sidaa marka Luban kuma dad marka cilmiga saarta xooga saarta mise geeda kale oo sida garanwaago kale wadanka ku badan iyaga maad isku dayday waan maqlay waxaan ku bilaabay research-kayga malmalka PhD-gayga waxaan ku sameeyay malmalka professor-hii waxaan ka shaqayn jiray pharmaceutical company dhowr 10 sanadood marka I got headhunted professor biology baa igu yidhi kaalay nala shaqee marka England baan ka shaqayn jiray Wyeth Laboratories marka hobbygaygu marka wuxuu ahaa herbal medicine marka dee waan ku cararay Cardiff University qof hobbygiisa ka dhigi kara shaqo dee ma jirto sportsku ma jira marka the first 3 years waxaan ka shaqaynay wax la yiraahdo pesticide waxaan daarada laga helo slugs and snails invention baan soo saaray ka fiican waxa laga iibsado UK-ga B&Q baa jira dukaan superstore waxay iibiyaan wax la iska rido xayawaanka yaryar kaygii baan ku sameeyay PhD malmal iyo wax kale baan isku daray laba week mi u soo dhawaan ubaxa laba week BBC-gii baa duubay oo program ka soo saaray PhD-gaygii baan ku sameeyay markaan dhameeyay ka malmalkii waxaan ku taskeenay cancer baan ku wareegay patent baan soo saaray labada waxaan ku sheegay patent baan soo saarnay patent waxaan soo saaray because haddaan anigu aan soo saarin Carabta soo saari lahaa Saudi Arabia malmalka aad bay u jeceliin Riyadh Faisal University ba aad iyo aad malmalka u jecel marka waxaan sayri haddaan anigu patent garayn dee Soomaalidu they're gonna lose their knowledge marka waa noo patent gareeyay laakiin waxba maan ku samayn I only published it wax la yiraahdo xabag haadi ma maqashay waa malmalku waagyahay laakiin waa udgoon ku yaala soo wax ka baxa markaas waa ku yaala isaguna ma dhulka Soomaaliland iyo Puntland laga helaa waxa laga helaa koonfurta Soomaaliya kiliga shanaad iyo waqooyinka Kenya
south oo dhan meesha dry desert marka waxaan soo saaray rinji ka waran iminka waxaad oran doontaa rinji yaa u baahan rinjigani waa rinjiga markabka waa multi-million pound industry waxaa dhaca markabku markuu badda uu ku jiro every 3 months wuxuu u baahan yahay inuu dekada joogsado because waxa ku dhadhaga wax dhagax oo kale ah laakiin maaha dhagax waa wax nool waxaasi wuxuu koosgareynaya drag markabkii buu slow ka dhigaya markaa petroolkii oo dhan baa weysgarinaysaa marka waa multi-million pound industry rinji baan soo saaray waxaa ku dhegaya markabka Georgia marka laba nooc bay soo saarnay mid dila iyo mid ariya marka waad maasantay Dr. Ahmed waqtigaas ku riyaan maranaya marka waxa soo saartay wali ma la test gareeyay ma la isticmaalay waxa soo saartay mise wali waa wuxuu ku jira shay baarki kaas ka wan iska daynay company Germany jooga baa jecla Hamburg Hamburg baan tegay inventionkeygii baan la sheegareeyay company ma jeclaaday laakiin company kale baa ibsaday so markasta waxa adag commercialization wax la yiraahdo baa adag especially in the UK ga waxaan nahay conservative ma nihin sida Americans we say my invention is the best but in UK waxaan nahay dad humble ma garatay laakiin imaka waxaan ku jira commercialization of frankincense marka wadamo UK ba isku wadamo kale ma loo iibin karin amba geeska Afrika hadii lagu sameeyo wadankii oo kale lagu sameeyo imika waxaan isku eegayaa next March waxaan soo saaraya cosmetics anti-aging line-ka naga biya marka dumarka oo dhan baan doonaya naga iibsadaan insha Allah waxaan sameynay clinical trial ciyaar maaha marka waa qaali waa scientific and you don't know inuu shaqayn doono marka resultskii waxayna siiyeen last month si fiican buu u shaqeeyay line-kii 22% buu yareeyay marka waa significant marka next year cosmetic bay soo saari doona waxaan ku jirnaa manufacture iyo marketingkii team dhan baan haystaa oo ka shaqeynaya waxa intan anigu aan ka shaqeynaya science-ka iminkana waxaan bilaabaya waxaanad arkaysid dawo tablet aan soo saaro this time next year insha Allah halka UK lagu iibgeyn doona lagu soo iibin doona mise commercialka xageed geynaysa xageed ku iibgeynaysa bay ku bilaabina and then Europe and then America insha Allah Afrika iyada ka waran geeska Africa waa nimanya geynaysa marka soo socda insha Allah I have to share this fact baa notice doona insha Allah aad iyo aad ba mahadsan Dr. Ahmed thank you very much my pleasure